السلام عليكم كسو دوادا جنال كينا اسو سو نخد وناكسن maanta waxaynu baran doonaa maadada physiology-ga taxanaayno ee casharkii lixaad aynu maraynaa casharkan maanta waxaynu ku baran doonaa body fluids and acid base balance oo ah isku dheelitirka aashitada iyo baraxa jirkeena ku jira iyo dhammaan dareerayaasha jirkeena ku jira ba inaynu sameeyno isku dheelitir dhamaadka casharkan insha Allah waxaan rajeynayaa inaad qodobkani wax badan ka fahmi doontid biidhnillaahi jalla wa ala qaybtan waxaynu ku baran doonaa acid iyo base maxay kala yihiin. Acid horta waxaynu ku bilaabaynaa waa maxay acid, waa maxay ashito. Waa substance that releases hydrogen ions oo ay micnaheedu tahay waa walax soo deysa ionada hydrogenka. Base waa maxay, basena waa substance that will combine or attach hydrogen ions oo ay micnaheedu tahay waa walax isu keenaysa ama isku dhajinaysa ba ionada hydrogenka. Labadaasi waxay ku kala yihiin, midna waxa uu sameeyaa hydrogen ionska ayuu soo daaya waa acidki, basekana waxay samaysaa waxay isu keentaa ama isu dhajisaaba hydrogen ionski. Jirkeena markaynu fiirino marka ereyadani oo ama badnaanshaha hydrogenka waxaa lagu qeexaa inta badan pH. Haddaba concept yar ayaa jira, conceptigaas oo sheegaya haddii uu bato ion concentrationka ama hydrogen ion concentration haddii uu bato oo ay tahay hydrogenka badnaanshihiisa hadduu bato waxaa dhalanaysa inuu yaraado pH-ka. Level of pH waa yaraanaysaa. Kulama uu yaraadana hydrogen ion concentrationka waxaa badanaya pH-ka oo micnaheedu tahay labadani waxay vice versa. Mid hadduu uu bato mid kale yaraado oo micnaheedu tahay haddii hydrogen ion concentrationkiisu uu bato waxaa yaraanaya pH-ka. Haddii uu hydrogen concentrationka uu yaraadana waxaa badanaya pH-ka ayaa badanaya. pH-ka waxaa lagu cabiraa scale. Scale-kaasi waxaa loo yaqaanaa pH scale, power of hydrogen scale. Scale-kani marka waxaa lagu cabiraa badnaanshaha ama xadiga uu yahay base haddii uu soo galay fluidkaasi ama haddii uu yahay acid haddii uu yahay ama haddii uu yahay neutral. Scale-kaasi marka tira ayuu leeyahay. tiradaasi haynu wada fiirno marka iyagoo aynu kala sheegayno midba waxa uu midka kale kaga duwan yahay. haddii aynu ka hadalno markani pH of hydrogen, haddaynu ka hadalno power of hydrogen oo ah pH scale. Scale-kani ama cabirkani waxa uu ka kooban yahay tiro gaaraysa lambarka 1 ilaa 14. qayb waa acid, qaybna waa base, qaybna waa neutral. Number 7 oo u dhaxeeya labada base-ka iyo acid-ka ba waa lambarkiisa uu yahay 7, waa dhexdhexaad oo ah mana ahan base mana ahan acid. balse tirada ah 1 2 3 4 5 ilaa 6 waxay noqonaysaa acid. tirada ka dambaysa 7 oo ah iyadana 8 9 10 11 12 ilaa 14 waxay noqonaysaa iyadana base ama alkaline ayay noqonaysaa. haddaba laba ayaa loo kala qaybiyaa labada noocoodba. acidkan laba ayaa loo qaybiyaa, basekan labo. acidka labada loo qaybiyo waa strong acid iyo weak acid. strong acidka waxaa kow ka ah lambarka 1, lambarka 2 ilaa 3 waxay isku noqon doonaan strong acid. 4 5 6 waxay noqon doonaan weak acid. qaybtan kale ah neutralkan waa 7. marba haday tirada gaarto marka 8 9 10 waxaa loo yaqaanaa inay tahay weak alkaline ama weak base ayaa loo yaqaanaa. 11 12 ilaa 14 waxay noqon doontaa strong base ama strong alkaline ayay noqon doontaa. pH of scale-ka marka intaas ayaynu kaga tagnay. acidka oo kale hadaynu ka hadalno apple-ka ayaa soo gala, lactic acid-ka ayaa soo gala, tomato ayaa soo galto, black coffee ayaa soo gala. intaas waxay isku yihiin acid ayay isku yihiin. halka baraxana uu soo galo egg oo ukuntii oo kale ah iyo waxyaabahani oo gacmaha hand sanitizer oo kale iyo waxyaabaha kale ee musqulaha iyo waxaas in lagu nadiifo loogu talagalay iyagana waxay soo galaan base-ka ayay soo galaan. neutralkana waxaa tusaale inoogu filan meeshan ay yaala biyaha saafiga ah oo pure water-ka. halkani ayay sharaxaada pH scale-kaga tagaynaa. waxaa muhiim xusuusid mudan in pH-ka uu ilaa tiradiisa acidka markaynu u fiirno uu yahay 1 ilaa 6, 7 ayna tahay neutral, 8 up to 14 ay tahay base. Sources of hydrogen. ilaha ay jirkeena uu ka helo hydrogenta. ilaha uu jirkeena ka helo hydrogenka waa 3 ilood ama 3 source ayaa jirta. source-kood waa carbonic acid formation oo ka yimaada waana ah midka ugu badan ee inta badan laga helo hydrogen ionska kaasoo ka yimaado metabolismka ka dhaca jirka kaasoo lagu soo saaro carbon dioxide ayuu ka yimaada isagan. 2 aashitada loo yaqaano inorganic acidka la soo saaro inta lagu guda jiro nutrient breakdown oo ah jijibinta nafaqada ayaa laga helaa hydrogenta. waxaa kaloo laga helaa organic acid resulting from intermediate metabolism oo ah aashitada organiga ah taasoo ka timaada ama kasoo farcantaba intermediate metabolism oo ah waxyaabo waxaa jira metabolismka intermediate u ah oo dhexdhexaad u ah oo u dhaxeeya macnaha waxyaabahaasi waxaa kow ka ah lactic acid iyo fatty acids oo kale iyaga ayay kasoo farcantaa. marka saddexda meel ee laga helo marka waa
midka koowaad carbonic acid formation, midka labaad inorganic acid producing during nutrient breakdown, iyo organic acid resulting from intermediate metabolism. Total body ama guud ahaan jirkeena waxa uu ka qaybsamaa laba qaybood. qayb adka ah oo loo yaqaano solid part iyo qayb biyo ah oo loo yaqaano water part. boqolkiiba 40 jirkeena waa solid part, waa qaybta adkaha ah sida lafaha iyo xubnaha kale oo murquha ay ku jiraan ayay noqotaa. qaybta kale ee water partigana iyadana waxay ka kooban tahay boqolkiiba 60 jirkeena, qaasatan marka loo fiiriyo adult maleska oo ah ragga. markii dumarka loo fiiriyo waa boqolkiiba 50 ayay noqotaa waterka. kala duwanaanshaha labada sex ama labada jinsi waxa inta badan ka yimaada dumarka jirkooda waxa ku badan maadada loo yaqaano adipose tissue ama nudaha loo yaqaano adipose tissue ayaa ku badan, halka raggana ay jirkooda uu aad ugu badan yahay muscleska. difference marka meesha ayuu ka yimaada. haddaynu fiirno marka jirkeena total body fluidska sidii 10 ka horbaynu ku soo sheegnay waxa loo qaybiyaa laba qaybood. labadaas qaybood oo kala ah extracellular fluid iyo intercellular fluid. extracellular fluid 3 meelood hal meel kamid ah waa jirka 3 meelood hal meel kamid ah dareerayaasha ku jira waa hal meel kamid ah saddexdaasi meel waa extracellular fluidka, kaasoo marka lagu qiyaaso guud ahaan inuu yahay 15 liter. meesha intercellular fluidska iyagana ay yihiin labada meel ee soo haray saddexdaas meel markii jirka loo qaybiyo labada meel ee soo haray kalena ay yihiin intercellular fluidska yihiin, iyagoo iyagana lagu qiyaaso inay gaaraan ilaa 25 liter. guud ahaanna dareerayaasha jirkeena ku jira waa 40 liter marka la qiyaaso. dareeraha loo yaqaan extracellular fluidka boqolkiiba 20 ka mid ah waxa weeye plasma weeyaan. plasmadaasi waxa ay ku jirtaa ama dareerahaasi waxa laga helaa dhiig ayaa laga helaa oo circulationka ayaa laga helaa, halka qaybta kale ama 80 kale ee soo hartay markii boqolay loo qaybiyo ay tahay oo ah dareerayaasha u dhaxeeya cellska ayaa qaata boqolkiiba 80 kale ee soo harayna. dareerayaashaas oo loo yaqaano interstitial fluid. daily intake of water, maalinlihii inta biyo aynu qaadano. jirkeena laba meelood ayuu biyaha ka soo galaa ama biyahuba ka helaa. labadaasi meelood oo kala midda koowaad waa waxa uu ka helaa ama uu helaa qaab dareera ah ama cuntada aynu cunayno biyaha aynu ku qaadano aynu ka helnaa, taasoo markii la isku daro noqonayso biyaha aan caadi u qaadano iyo kuwa aynu raashinka ka helnaba markii la isku daro waxay isu noqonayaan 2100 ml maalintii inaynu helno oo biyo ah. isha labaad ee nagu soo gashana waa markii uu jirka uu sameeyo oxidation of carbohydrates. jirka waxa uu sameeyaa oxidation of carbohydrate. oxidation of carbohydrate markuu dhaco oo la barbixiyo oxygen-ta ku jirta carbohydrateska la cunay waxa dhalanaya biyo ayaa meesha ka abuurmaya. biyahaasi abuurmayo waxa iyagana lagu daraa jirka, iyagana maalintii waxa ay noqon karaan ugu yaraan 200 ml maalintii in laga helo oo biyaha uu jirka uu ka helo. guud ahaan markaynu isku darno marka labadaasi inta biyo ee laga helayo maalintii jirka waxa uu helaa ama uu qaataa 2300 ml maalintii. daily loss of body water, maalinlihii imase biyo ayaa dhunta ama jirkeena ka dhuntaba. afar qaab ayay u dhimaan biyaha, waxay u dhimaan afar qaab. afarta qaab ay u dhimaan waxa weeye mid waxaa loo yaqaanaa insensible water loss, dhumitaan biyo oo aan la dareemayn. fluid loss in sweat, dareeraha ku dhuma dhididka. water loss in feces, biyaha ku dhuma saxaraha. nugiino oo ah saxarihii markii raashinka aynu cunno intii qashinka lagu soo sameeyo qashin saarka lagu soo sameeyo inuu musqulaha geeyno, intaasina waxa ku baxa biyo iyo biyo kale oo ka baxa iyagana kidneys oo ah sida urine ama kaadi ahaan ay u baxaan. haddaba insensible water loss-ka intaani kale waa iska cad yihiin. insensible water loss-ka hadaynu sharaxno waxa weeye sida evaporation ku dhaco oo kale respiratory-ga. neefta ama oxygen-ta aynu qaadanayno iyo carbon dioxide-ka la bixinayo gases oxygen-gaasi waxa ku baxo biyo, biyahaas oo qaaf evaporation ku baxa. kuwaasi oo kalena waxa lagu tiriyaa insensible water loss. halkani ayaynu kaga gudbaynaa wax walba oo faahfaahinaha. hadda waxaynu si toos ah u galeynaa sabaro cadaynaya falgaladan si ay u dhacaan oo la isugu balance gareeyo acid iyo base iyo fluidska jirkeena ku jira. haddii aynu sameeyno marka acid base hemostasis ama sida uu dhacay aynu sharaxno, horta laba xaalad baa imaado. casharka hor dhaxaysan ku soo sheegnay oo ahayd acidosis iyo alkalosis. acidosis waxay ka imaadaa markii power of hydrogen-ka uu low noqdo. alkalosisna waxay imaadaa markii uu power of hydrogen-ka uu si xad ka baxa uu bato. haddaba acidosis-ka sidee loogu soo celiyaa normal waxaa lagu soo celiyaa acidosis markuu dhaco maskaxda iyo arterial receptorska oo ah receptorada dareen qaabilayaasha ku jira maskaxda iyo xididadaba waxa ay sameeyaan dareen ayay dhaliyaan. dareenkaasi waxa uu sameeyaa respiration rate-ka ayuu kor u qaadaa, blood carbon dioxide-ka hoos ayuu u dhigaa, blood carbonic acid-kana waxa uu sameeyaa hoos ayuu u dhigaa. waxa uu kor u qaadaa marka power of hydrogen kor ayuu u kacayaa. kadib haddii carbonic acid-kii iyo carbon dioxide-kii dhiigga ku jiray ba hoos loo dhigo, respiration rate-kana la ziyaadiyo, power of hydrogen-ka kor ayuu kacaya. xaaladii marka normal ay ku soo noqotay. haddana haddii power of hydrogen-kii uu toos u sii bato oo ay la galo xaaladda baraha ah, waxaa dhacaya marka sidii hore oo kale brain iyo arterial receptorska ama dareen qaabilayaasha ku jiro waxa ay sameynayaan waxa ay kicinayaan dareen dhalin ayay sameeyaan. dareenkaasi waxa uu sameynaya marka respiration rate-ka ayaa hoos loo dhigayaa, waxa kor loo soo kicinaya blood carbon dioxide iyo blood carbonic acid. marka waxa imaanaysa xaaladii pH-ka in ay noqoto mid hooseysa. pH-ka xaaladiisa hadii soo hooseysana waxa ay hoos timaadana waxa dhacaya in
in xaaladii alkalinka ama baseka ay kusoo noqoto normal. midani waxay ka mid tahay isku dheelitirka loo sameeyo acid and base balance. haddaba aynu isla fiirino mid kale. midkanina haddaynu fiirino isagana waxa uu ka sheekeynaya alkalosis iyo acidosis. alkalosis acidosis haddaynu fiirino sawirkaani hadda waxaynu u jeednaa in pH-ka uu ka yar yahay 7.35 hadduu ka yaraadana waxaa dhacaya laba xaalad. xaaladda koowaad waxay noqonaysaa partial pressure of carbon dioxide-ka ayaa zaa'idaysa oo kor ayay aadaysaa. waxaa hoos u dhacayo bicarbonate-ka ayaa hoos u dhacaya. bicarbonate hadduu hoos u dhaco process kale ayuu aadaya. partial pressure of carbon dioxide hadduu kacana isagana process kale ayuu aadaya. processku aadaya horta waxaa imaanaya acidosis. acidosis-ka imaanaya ee kale ah partial pressure of carbon dioxide kor u kacay waxa uu dhalinaya respiratory acidosis, halka metabolic acidosis ay dhalinaysa ama iyadana ay ka imaanaysaba bicarbonate-kii oo hoos u dhacay. maxaa dhacaya marka sidee loo soo celinaya? waxaa loo soo celinaya xididka ayaa waxaa lagu sameynaya hyperventilation oo ah neeftii ayaa kor loo qaadaya. sababada waxaa lagu sameynaya hyperventilation in neeftii la ziyaado. neeftii la ziyaado waxa hoos u dhacayo partial pressure of carbon dioxide ayaa hoos u dhacayo. waxaa ziyaadaya oo kor aadaya bicarbonate-kii ayaa isagana wuxuu ku dhacaya kor ayuu aadaya. metabolic acidosis-kiisana waa la soo celinaya. okay, alkalosis isagana wuxuu ka dhalanayaa markii uu ziyaado ama uu power of hydrogen-ka noqdo in ka badan 7.45. haddii uu noqdo marka maxaa dhacaya? waxaa dhacaya labadii xaalad oo ahayd respiratory alkalosis iyo respiratory alkalosis iyo metabolic alkalosis ayaa bilaabanaysa. sidee ku bilaabanaysaa? partial pressure of carbon dioxide-ka waxa uu noqonayaa low. haddii uu low noqdo midka kan ee ah ama bicarbonate-kana isagana waxa uu noqonaya waa uu ziyaadaya. haddii uu zaa'ido bicarbonate-ka waxaa imaanaya metabolic alkalosis. haddii uu dhacana partial pressure of carbon dioxide-ka waxaa imaanaya inuu noqdo respiratory alkalosis. haddaba sidee loo celinaya? iyagana waxaa la sameynayaa hyperventilation ee lungs-ka lagu sameynaya oo waxdaba sababada waxay sameynaya hyperventilation oo ah neeftii ayaa hoos loo naqaya respiratory rate-kii ayaa hoos loo celinaya. haddii loo celiyo waxaa ziyaadaya partial pressure of carbon dioxide. waxaa hoos loo dhigaya bicarbonate-kii oo isagana lagu sameynaya reabsorption. haddaba marka sidani waxa ay ka mid tahay iyadana qaab kale oo la isku dheelitiro acid and base balance. daily water balance aynu ka hadalna marka sidee maalin kasta biyaha la soo dheelitiro. biyaha maalin kasta waxaa la soo dheelitiraa horta waxaynu sheegnay water gain oo daily ah horaan usoo sheegnay iyo water loss daily ah horaan usoo sheegnay. sawirkan isagoo bayaansan ayaynu kaga hadli doonaa isla fiirna marka. metabolic water-ka ay maalintu qaadano waa 200 ml. ingested foodska oo ah source aynu ka heleynay oo raashinka ah waxaynu isagana ka helnaa 700 ml ayaa lagu qiyaasaa. ingested liquidska oo ah biyaha aynu cabaynana waxay noqonayaan 1600 ml. haddaba meeqa sidee marka lagu qasaariyaa ama sidee loo dhumiyaa biyahaasi? biyihii la qaatay iyo sidee loo dhumiyaa? GI tract-ga ama bowel-kii oo ah meeshii saxarada maraysay oo ahayd gastrointestinal tract-gii ayaa waxaa qaadan doona 100 ml ayuu qaadan doonaa. sanbabada waxay qaadan doonaan 300 ml oo si neef ahaan ay u isticmaali doonaan. skinka oo kale waxaa loo qashin saari doonaa iseen dhididkii wuxuuna qaadan doonaa 600 ml. kiliyahana waxay qaadan doonaan 1500 ml. kaadi ahaana ayaa iyagana waxay samayn doonaan inay u bixiyaan. formula ayaa sheegaya marka in biyaha la qaadanayo waajib ay tahay inay la mid ahaadaan biyaha la dhuminayo. micnaheedu ay tahay haddii 200 ml oo biyo metabolic water la qaatay raashinka la qaatay 700 ml uu yahay biyaha la cabayna ay yihiin 1600 ml waxaa la doonayaa isla sidaas oo kale iyagana inay u baxaan oo ah waa inay ahaadaan kuwa equilibrium ah. haddaynu u dhigno sawirkan anigoonu ku bayaanayno waxaynu qaadanaa maalintii 1500 ml oo biyo ah 800 ml oo raashin ah oo biyaha dareeraha inoo soo raaca iyo 300 ml oo oxidation water ah biyaha oxygen ahaan inuu qaadanaa. kuwaan inta laga helaa hore ayaynu sheegnay waxa ay laga helaa metabolic-ka ama metabolism-ka jirkeena ka dhaca markii oxidation carbon dioxide-ka lagu sameeyo ayay soo baxdaa. intaasi dhammaan marka isku dar waxay isku noqotay 2600 ml. 2600 ml maalintii sidee loo maareeyaa? waxaa loo maareeyaa 1500 kaadi ahaan ayaa loo saaraa. kiliyaha ayaa qaata. lungs-ka ayaa qaata iyagana 400 ml si hawa ahaan ayay u qaataan. skinka oo kale iyagana waxay qaataan 600 ml oo dhidid laga dhigayo iyo intestine-ka iyagana 100 ilaa 110 ml qaata. sidaan waxa ay ka mid tahay sida la isugu dheelitiro jir biyaha soo gala. casharkeeni maanta aynu kaga hadlaynay marka body fluids and acid base balance halkan ayuu inooga yahay. casharka xiga intaynu ku kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa assalaamu calaykum. haddii ay jiraan su'aalo iyo talo iyo tusaaleba waxaa idinoo heshid waxaan kaa codsanaynaa inaad qaybta hoose ee commentiga inoogu dhaaftid. adigoo mahadsan waxaan idinkaga tegayaa assalaamu calaykum.